باي sanadka 2021 soo dhawow sanadka 2022 dheef iyo dhibaataba wuxuu lahaa waa galbaday sanadkii 2021 waxaan idin la wadaagayaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida ka dhacay sanadkii tagay Joe Biden iyo Kamala Harris oo la wareegay jagooyinka ugu sarreeya dalka Mareykanka horraantii sanadkii 2021 taageerayaasha Trump oo gudaha u qalay aqalka Koongareeska Mareykanka horraantii sanadkii 2021 mawjadii labaad ee COVID-19 oo dhulka la jartay dalkaasi Hindiya wuxuuna ku dhacay 720 milyan oo qof halka ay u dhinteen 300 oo kun oo qof halkaas iyo Turkigana dab qabsaday meelo badan oo Turkiga kamid ah galaaftay 100 meelood oo kamid ah isla dalkaasi Turkiga Israa'iil oo duqeysay Gaza halkaas oo ay ku nafwaayeen 254 qof 67 caruura iyo 39 haweena bishii May Princess Philip oo ku dhintay da'da 99 sano boqolkiina ay uga hadhay hal sano oo qura dalka Talyaaniga oo ruxay Euro Cup 2020 hogaamiyayaasha khaliijka oo saxiixay heshiis caalami ah dalkaasi qadar gudihiisa Lionel Messi oo maca salaamay Barcelona 21 sano kadib oo uu la joogay kooxda Barcelona militariga Sudan oo afgambi military kula wareegay dalka Sudan Taliban oo la wareegtay talada Afghanistan iyo Mareykanka oo faaruujiyay isla dalkaasi 25 sano kadib oo dagaal iyo qax ah dhimasho 150 kun oo qof iyo 2 milyan iyo bar iyo qaxooti ku noqday daafaha dunida militariga Myanmar oo talada afgambi kula wareegay dalkaasi Myanmar ugu dambeyntiina Omicron oo bedelay COVID-19 kana aafa badan ahna cudur laba jibaarka awood badan COVID-19